Assalaamu calaykum waa mar kale muuqaal cusub oo horeanteedii oo shabtay YouTube channelkeena Mr. Sheekay waxaa ka codsanaya channelkeena inoo subscribe gareysid hadii nolol joogtay ilaa muuqaalka like saartid si u sii gaaraan saaxiibo wanaagsan si adinkoo kala ah mahadsanidin. Sheekadan waxay ku dhacday 3 bilood ka hor ugu horreeyna iskin baraniga magacu waa Ethan waxaan jiraa 25 sano waxaan ku noolaa tuulo aad u qabow badan waxaan ahay cameraman garanka sawir qaadista saatay maalmaha kamid ah aniga guriga jooga waxay timid xaaskayga waxaan iga codsatay inaan guri aad u qurux badan oo ku yaal tuulo miyi ah tuulada marqa ku dhaxgadi jiray baraf aad u daran oo sida dabeelo guriga marka soo gudgalana guri aad u qurux badan ugu dambeyn gurigan waa iibsanay saatay maalmaha kamid ah anigoo TV ga daawanaya waxay iga xalaaway antenka TV ga qabow jiro awgi maalinta waxaa socday dabeelo aad u daran TV ga ma mid shaqeynaya saatay waxaa soo dhanka daaqadii waxaan eegay cimilada maalinta cimiladu waxay dhimin zaid u xun waxaan soo qaatay jaakadeeda si aan u baxo dhanka banaanka saatay markaan diyaariyay xaaskii waxa sheeynaa banaanka aadayo si aan u soo hagaajiyo antenka TV ga saatay marka banaanka soo baxay banaankii eegana cimiladu waxay zaid u qabow badan hadda ay baraf iyo dabeelo aad u daran maalinta waxay maalin zaid qabow badan saatay anigoo yaaban waxaan dhanka kale guriga nagu dhigan oo agtiisa raad maraya dhinaca dambe guriga waan yaabay anigoo yaaban si tartiib raadkooda bakay waxaa yeelay guriga cidna ma degnayn intaan soo degnaa anigoo yaaban isla guriga tolay degnaan karo oo naxsanna waxaa soo dhanka daaqadii si aan u hubiyo cidna ku jirtin kale saatay cidna waa ka gurigii waan la hadli waayay muddo anigu wax mid geesaaska eegaya anigoo doonaya inaan qunay arag saatay waxaan damcay inaan dhanka kale qaybta dambe guriga in badan waxaan mid geesaaska fiirinaya si aan qunay arag waxaan dhanka dambe qaybta guriga waxaan arkaa inuu qaybta dambe guriga galayo waxaan iska eegaya dhammaan hareerahayga waxayna marayban qofna inay aragto xataa dabka dhanka eraadka loo si tartiib ah anigoo doonaya inaan arko qofka raadkan saatay in muddo markaan soconayay waxaan arkay wax aad u naxdin badan horeen waxaan arkay in horteeda taagan oo loo gedegti taagan ninkan wuxuu taagnaa qaab cajiib ah saatay maalinta xadaaya baraf zaid u daran ninkan wuxuu dhar madow wajigiisa wuxuu qarinaya jaakad anigu wax weyd yaaban saatay waxaan damcay ninkan aan sawiro ugu dambeyn nafteeda ayaan u cabsaday maxaa yeelay wagnigu wuxuu yahay ninkuna waxaa mid sidii u taaganba anigoo isleh yuusan ku arkin anaa si tartiib ah sidaa lagu soo degay tilaabo weliba ugu dambeynna waan ka soo cararay waxaan u soo cararay dhanka gurigaygii anigoo naxsan saatay xaaskayga ay timid waxaan igu tiri maxaa sidan oo dhan ugu soo carartay maxaa kaa soo cabsiiyey waxaad soo aragto naxdin badan anigana waxaan ku dhahay maya waxaan soo ma arkin dharkeena noo diyaari caawa waa tagaynaa ama berito ayadan waxay idinoo arurinayso dharka islaamikiin waxaan ahaa mid ayada boojeynaya waxaan isku dayay inaan hilonsiiyo laakiin in badan oo igu celinaysa maxaa dhaco jira saatay waxaa la gaar xilli haween ah aniguna waxaa mid xaaskeeda boojeynaya ma jeclina xaaskeyga ka cabsiiyo waxaan arkay oo shay ma rabin waxaa la gaar saqdii xadheemeynimo xaaskii waxay igu tiri shanqar ayaan maqlayaa anigu waxaan ku dhahay malaha waa dhigahaya wax ma jiraan iska seexo waan seexanay saatay waxaa la gaaray xilli saqdhaxa ah intaan hurdaynay guriga waxmed zaid loo gargaraacayo dhammaan daaqadaha albaabada anigoo yaaban isleh talomaad maxaa qaldan hal mar soo nahay xaaskayga maxaa yeelay markaan guriga daaqada ayaa wax lagu soo tuuray ugu dambeyn sariirta ayaan kusoo tagnay xaaskayna waxa u sheegay inay aamusto ilaa dhowr daqiiqo waxaan doonayay inaan ogaado qofku yahay saatay cidna waa ka waayay gurigii xaaskayna waxa u sheegay inaan labisano maxaa yeelay waxaan ku dhahay waan ka tegaynaa goobtaan waxaan soo xiran dharkeena jaakadaha anigoo weliba cabsi nagu jirto ayaan waxaan arkay dhanka daaqadii qofna iga soo eegaya
isla markiina waan ka soo cararnay gurigii. Waxaan u soo harnay gaarigeena si aan u baxsano goobtan cidlada ah.